qaybta saddexaad ee buugga u dambeysa qoraagu wuxuu ku sheegayaa waxaa loo yaqaano suuq geynta, tartanka iyo maaliyadda ganacsiga. saddexdaa qodob buu kala hadlaya. waa suuq geyntii, tartankii iyo maaliyaddii. qodobka waa suuq geyntan ka horeeyo. ganacsigu wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano ikhtirac iyo suuq geyn. labadaa qodob buu qoraagu sheegaya isagoo markaa kasoo xiganaya ninka la dhahdo Peter Franken. ganacsigu laba arrin kama maarmaan la dhahda. qofku inuu la yimaado wax cusub oo ikhtiracayo iyo inuu bulshada gaadhsiiyo oo suuq geyn u sameeyo. labadaa qodob oo midna qofkii uu ka imanayo iyo dadkii ka shaqaynayay, midna environmentkii kale ee macaamiisha uu ka imanaya. labada ganacsigu kama maarmo. marka hadduu qofku waayo suuq geyn, waxa laga yaabaa ganacsiga markaa inuu shaqayn waayo. shirkado badan ma laha istiraatiijiyad iyo waxay ku socdaan. taasna waxay keenaysa markaa suuqii in ciidi fara badan uu ku yimaado oo suuqii markaa lagaga horeeyo. marka waxa loo baahan yahay buu qoraagu leeyahay suuqgeyn dadkeenu inay aada u fahmaan. faham darrada iyo dadkeenu aan aada u aqoonin waxa loo yaqaano suuqgeyntu way nagu yartahay innaga. qof takhasus u leh ama qof inta ugu badan ka shaqeeya waxa laga yaaba inay aad markaa u yar yihiin. marka suuqgeyntu ganacsiga waa u muhiim. waa muraayadda koowaad ee ganacsiga looga baahan yahay marka ikhtiracayo qorshaha laga yimaado. qodobka labaad waa inuu tartan jiro. tartanku wuxuu markaa ka imanayaa laba qof oo isku ganacsiya, laba shirkadood isku ganacsiya, laba shay oo isku adeeg bixinaya. marka waxay doonaan bahaadaan marka isku dhawaadaan ama kala dheeraadaan. marka Joseph qoraaga la dhahdo wuxuu leeyahay tartanku waa dabaysha aan kala go'a lahayn ee ganacsiga. yacnihii shirkadda tartan haysata ee shirkad kaloo tartanta haysata iyo shirkadda bilaa tartanka isku adeeg maaha. adeegooda xagga tayadiisa markaad eegto, helidiisa markaad eegto, sustainability-ga markaad eegto, intaba markaad eegto waxa kaga fiican shirkadaha haysta yacni tartanku jiro. tartanku markaa waa quruxda ganacsiga weeyaan. hadduu markaa ganacsigii tartankii uu jiro waxa dhacaysa in horumar badan ugu yimaado. waayo laba shirkadood markastoo ay isku adeeg yihiin tartan baa meesha imanay. tartan markuu yimaadana qolada waxa ku tanafsaa kuwa kale inay ka adeeg fiicnaato, inay ka waxay dadka loo qabanaya kaga fiicnaatay markasta isku dayaysa. laakiin hal mid meesha hadday haysato waxaa dhacaysa in halkaa mid xagga qiimaha oo kale, xagga macaamiisha soo dhaweynta oo kale, xagga innovation intaba inay kulliyata laga yaabo. oo iyada loo baahan yahay markastoo ganacsigu kooto noqdan wax laga yaabo markaa inuu shaqayn waayo. qodobka u dambeeya waa maaliyadda ganacsiga ama hantida lagu dhaqaajinayo ganacsiga. qoraagu wuxuu leeyahay waa caqabadda ugu weynaa haysata shirkadaha ama kicisaba dhaqaalahaasi. xalka ugu dhow wuxuu noqonayaa qofku inuu maareeyo maalgelinta oo uu isku dayo inuu isagu meel ka qaato. tusaale ahaan oo kale dee caalamku waxaa jira bangiyo waaweyn oo laga qaato muraabaxada iyo mudaarabada iyo qaybihiisa kala duwana ganacsiga markaa loo yaqaanin. marka innaga laakiin way nagu yar yihiin inkastoo imika ay soo badanayaan. marka waxaa muhiima qofku inuu dhaqaalo u sameeyo ganacsigiisii isagoo markaa dhaqaale markaa u raadinaya. buugga markaan soo ururiyo, buugga wuxuu ka warramayaa bilaabidda, badbaadinta iyo horumarinta ganacsiga. intaa imikaan kasoo warramayey si guud waxaan u sheegay ganacsiga iyo sida uu yahay iyo sida uu ku bilaabmo iyo waxyaabaha ganacsiga curyaamiya ee keenay inuu feelgaroobo iyo waxyaabaha lagu horumarin karo ay ka mid yihiin tartanka iyo hal abuurnimada iyo suuqgeynta. marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala buugga cid kastoo heli kartaa inay akhrido, lana sii cidda u baahan iyadoo qoraalana way heli kartaa. markaasoo waxay ka heli kartaa blogayga ay ku qoran yahay Cabdirasaaq Sandheere ayay markaa ka akhrisan kartaa isagoo markaa inta ka faahfaahsan oo qoraala. marka waad mahadsantihiin, dadkan kusoo koobaya aad baad mahadsantihiin.